السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كسو دواذا متكمدا عشرة كسو بسنة برشدة لغة إنجليزية. عشر كمان أنت ووضع هذا أما وضع شيكيس أما واحد لغة إنجليزية اللوير هذا conversation. مركا لبقف يا وضع هالليسا مركا لبقبدا يا وضع هالليسا marka labada gabdho waxay ka hadlayaan gabar ayaa guursatay markii gabadha kale waxay weydiinaysaa bal nolosheedii guurka marka waa 10 sida family-ga kulli ku saabsan marka waxa bilaabaya ayaa hadalkii bilaabaya waxay tiri markii hey Fatima, how are you doing these days? Fatima sida ayaa tahay maalmahan ama how are you doing sida ayaa tahay xaaladaada ka waran these days maalmahani هذا حلو لجيدا إرجع these days وحلو لجيدا مرك وجمع أما مرك واحد تلمام مثال معلمهن أما أيامهن صدا أيات هاي مركا هي عائشة مركا عائشة أيام لو لجيدا أنت everything وحولي بائس وحويه perfect كو ما ركتي هير سراء إرجع perfect وحلو هذا مركي وحولي بائيهين ay hagaagsan yihiin ayaa perfectly ila marka wax walba markay hagaagsan yihiin ayaa loo isticmaalaa marka eedii waxay tiri are you enjoying married life waxay tiri marka ku raaxaysanaysaa noloshaadii guurka ama ma ka heshay ereyga enjoying waxa loo isticmaalaa laba macno boo lagu fasiraa enjoy waa ku raaxaysi ama marna waxa laga helaa ka helitaan marka ayaa lagu fasiraa marka are you enjoying married life noloshaadii guurka ma ku raaxaysanaysaa noloshaadii guurka ahayd ma ka heshay ayaa loo jeedaa it couldn't be better or it couldn't be better marka waxa loo jeedaa it iyada couldn't be better yani xilli ka wanaagsan ma jirto ayaa loo jeedaa marka yani wax sadan wax meeshii ugu dambeysay wanaag wax marka aad ku tilmaamayso ayaa ereygan la isticmaalaa markii wanaaga ama xaaladda aad ku sugan tahay meeshii ugu dambeysay wanaag ay tahay ama wax walba markay heer sare ay yihiin ayaa it couldn't be better leeyahay marka xaalad ka wanaagsan ma jirto oo kale ayaa loo jeedaa marka xaalad ka wanaagsan ma jirto ayaa loo jeedaa my husband ninkayga is so supportive with my work ninkayga waa mid aad igu taageera shaqadayda ayay leedahay and he helps around with the house so much. My husband gabadha waxay leedahay marka my husband saygayga ama ninkayga is wuxuu yahay so supportive with my work mid aad igu taageera mid ii muujiya taageero mid ii kaalmeeya and helps around the house so much waa mid i caawiya ama iga caawiya hawsha guriga ayuu la jeedaa marka house so much marka waxay leedahay saygayga waa nin aad ii taageera ama igu taageera hawsha guriga sidoo kale waa qof maaragtay i caawiya wixii guriga ka socda ama hawsha guriga ayaa loola jeedaa marka and he helps around the house so much aadi waxay tiri you are so lucky aad ayaad u nasiib badan tahay you are adiga so lucky aad ayaad u nasiib badan tahay I hope waxaan rajaynayaa to get inaan helo I hope to get married to a guy like that waxaan rajaynayaa inaan helo inaan guursado wiil ka oo kale ah ayaa loo jeedaa marka I hope waxaan rajaynayaa to get married inaan guursado ereyga hadda to get married waa laba erey marka isku xiran marka inaan guursado ayaa loola jeedaa to a guy wiil ama qof like that sida oo kale ah marka waxay leedahay you are so lucky aad ayaad u nasiib badan tahay I hope waxaan rajaynayaa to get married inaan guursado ama inaan helo marka to a guy like that wiil nooca oo kale ah oo marka sidaa dadku u caawinaya inaan helo ayaa marka rajaynaya ay leedahay marka ereyga hope waxa la yiraahdaa marka waa rajo baadi waxay tiri I'm so happy aad ayaan ugu faraxsanahay
even though we are both working I'm so happy aad ayaan ugu faraxsanahay even xitaa thought we are both working xitaa marka annagoo labadeenaba aan shaqaynayno ereyga hadda even though waxa la yiraahdaa xitaa annagoo aan shaqaynayno labadeenaba ayaa loo jeedaa marka we get to spend a lot of time with each other in the evening and on the weekends marka waxay leedahay even though xitaa annagoo shaqaynayna we are both working ay leedahay marka xitaa annagoo labadeenaba shaqaynayno ereyga both waxa la yiraahdaa waa labada qof marka labadooda ayaa marka both ay leedahay working annagoo shaqaynayna we get to spend a lot of time waxaan isku helnaa inaan isla qaadano ereyga hadda spend a lot of time waxa la yiraahdaa marka with each other in the evening marka waxay leedahay inkastoo labadeenaba aan shaqaynayno haddana waxaan isku helnaa inaan isla qaadano waqti badan inaan isla qaadano maqrabiyada marka in the evening maqrabiyada and on the weekends iyo marka isbuuciyada fasaxa maaragtay dhamaadka isbuuca inaan marka isla qaadano ayay leedahay marka waqti inaan isla qaadano ayaan isku helnaa ayaa loola jeeda halka marka do you guys do anything especially marka waxay leedahay do you guys ereyga hadda ereyga guys markii si toos ah loo fasirayo waxaa lagu fasiraa wiilal ama rag ayaa lagu fasiraa laakiin hadda sidaas ugu jirto hadda dad yahow oo kale ayay ugu jirtaa ama idinka oo kale ayay ugu jirtaa marka do you guys idinku do you guys do anything especially idinku wax khaas ah miyaad samaysiin marka idinku hadda ereyga guys waxa dhanaad waxa meesha ugu jirtaa idinku ay ugu jirtaa marka sababtoo ah nin iyo naag isqaba ama isguursaday ayaa marka laga hadlaya marka waxa la yiri idinku wax khaas ah miyaad samaysiin in the evening waxay tir marka in the evening maqrabiyadii ereyga in the evening waxa la yiraahdaa maqrabiyada marka we just sit and talk over dinner waxaan kaliya marka aan fariisanaa isla markaasna aan ku dul sheekaysanaa cashada ereygaas we just sit and talk over dinner xiriir marka waxaan kaliya aan fariisanaa isla markaasna aan ku dul hadalnaa aan ku dul sheekaysanaa talk over waxa la yiraahdaa marka ku dul sheekaysi ayaa la yiraahdaa marka ereyga talk over waxa la yiraahdaa marka ku dul sheekaysi dinner cashada ayaan ku dul sheekaysanaa but laakiin on the weekend marka isbuuca fasaxiisii ama labada maalin ee nasashada isbuuca we try waxaan isku daynaa to get out inaan dibadda aadno to the beach marka xeebta inaan aadno ayaan isku daynaa oo mase hit aan qabano ereyga hadda hit waxa loola jeedaa waa qabasho ama aaditaan marka isla meeshii marka a nice restaurant maqaaxid wanaagsan inaan qabano ayaan isku daynaa oo mase go to a nice cafe amase waxaan isku daynaa inaan qabano ama aan aadno cafe wanaagsan marka waxay tiri wax khaas ah oo aniga aan sameyno waxay tiri maqrabiyadii waxaan fariisanaa oo aan ku dul sheekaysanaa cashada ha yeeshee maalmaha fasax ah waxaan isku daynaa inaan aadno dibadda khaasatan inaan aadno beachka ereyga beach waxa la yiraahdaa marka the beach waxa loola jeedaa hadda waa xeebta marka ayaa loola jeedaa oo mase hit inaan qabano a nice restaurant maqaaxid wanaagsan oo mase go to a nice cafe wanaagsan inaan qabano aadii waxay tiri marka sounds like everything is great marka waxay u muuqataa in wax waliba ay heer sare yihiin marka sounds like waxay u muuqataa marka everything in wax waliba great ay marka yihiin heer sare marka hagaagsan ayaa leeyahay marka casharka dabcan aad baan u sharaxnay laakiin halkan waxaan ku soo koobay ereyadii ugu muhiimsanaa ee casharka ku jiray ayaan marka soo bixiyay of Soomaali dhinaca kale aan ugu dul qoray si qofkii aan ereyada u helin uu marka u fahmo halkan marka ereyga enjoy waxa dhahnay or enjoy waxa loo jeedaa marka ku raaxaysi ama ka helid labadaba waa lagu fasiri karaa marka
ereyga husband waxa la yiraahdaa marka waa sayga ama ninka xaaslaha ah ee wax gabar guursaday ayaa la yiraahdaa marka ereyga supportive waxa loo jeedaa marka to support ay ka timid marka waa inaad tahay qofka kale hawsha ku taageera marka garab istaaga markuu hawsha hayo ayaa la yiraahdaa marka ereyga help waa sidoo kale iyadana waa caawin laakiin caawinta marka iyadana waa marka waxay noqon kartaa dhinacyo badan ay noqon kartaa marka laakiin waa ficil ahaan waa caawin kaliya hadda ayaan ku fasirayna marka ereyga xiga waa lucky waa nasiib marka spend waxaan ahlay word spend waxa la yiraahdaa marka waqti in qofka marka aad waqti aad meel aad geliso haday rabto ha noqoto inaad qof aad jeceshahay waqti aad la qaadato mise saxaabtaada aad waqti la qaadato ama waxa doonto ha noqotee laakiin waa waqti gelin ama waqti qaadasho evening waxa dhaana waa maqrabkii ama xilliga marka gabaldhici ereyxi waa dinner marka waa cashada waa mid kamid ah waqtiyada cuntada ayaa marka la yiraahdaa marka halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dabcan casharkii ku saabsanaa wada sheekaysiga luqadda ingiriisiga fadlan haddii aadan subscribe dhihin Himla Academy taabo calaamada subscribe-ka sidoo kale ku dhufo gambaleelka intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo